أنا مسلم ولي عزة بديني، وخير الزرع تجنيه اليديني، هويتنا تبينها قيمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ودرسيني أفراد كتاب كني أبو شجاع فصل وفروض الوضوء وسد فرضيال كده 6 أشياء. لح الرماد ويان وسد ما قوة بيلاده لح ولح صفينه قري لح داس أفر قرآن كان لقوا قادي هل حبنا حديث كان لقوا قادي حكم كيس midka lixaadna tartiibta quraanka u kala hormariyay iyo ficilka nabiga soo u weysa qaada jiray ayaa laga ogaaday. rugniga ugu horeeya arkaanta weesada an-niyatu niyo weeyaan. inda qasli alwajhi wajiga marka la mayrayo agtiisa la niyeysto. qofku marka ku bilaabayo wajiga weesada waa inuu niyadan la yimaado. marka la faraxlanayo maxaa la niyeystaa waxaa la niyeystaa sunno weeye, farxal sunno ah. nawaytu sunnata alwuduu baa la niyeystaa. luqluqa markaad marayso iyo farxalka weli lama gaarin waajibkii moogta. wejiga markaad biyaha ku bilaabayso waa waajib niyadana la timaado. wa qaslul wajhi weeye rugniga labaad, wejiga in la mayro. wa qaslul yadayn labada gacmood in la mayro weeye kan saddexaad. ilal mirfiqayn macal mirfiqayn ilaada يعني وحي لغو قايونيي بحونك سو غليا الا حصلده لا قبو او ميشا لا يراهدو عددك waa xibintan kore intaana saacid baa la yiraahdaa. halka iska galana mirfaq baa la yiraahdaa, gacanta saddexda magac bay leedahay. inta hore go'ana kaf baa la yiraahdaa. marka halka iska galaan xusul waa la yaqaane macal mirfiqayn ila al mirfiqayn macal mirfiqayn macal labada xusul waa in la mayro. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاعدة باجرته. واجب كي ماشو كل ما هذا اللي قمت يوتيو وانا قدر تصيان واجب وقبيوبين. سنة مركي اللي هذا ليو وانا تحبنت بيها كسي فجيدو. سق قيام هذا حبنا قرنان تبلد اللي قلنا يو. سق قيام هذا اللي قلنا ريو ويان. وهالك النبي أدب وأمان عليه الصلاة والسلام. ومسح بعض الرأس مدح قيب كمده والله مسحوه. مدح قيب كمده وإن لم مسحوه. وامسحوا برؤوسكم مرد إلهي أويري كلام الصارم بعد مشيجين، لكن حديث النبي أقصى أروري عليه الصلاة والسلام فعل كالنبي أنا ولا قاعد قيب كمده واجبة. قيب تاسو مال الله ماشي دونتين نغن كرتاه مدح مال كمده وأنا مسحضه. وغسل الرجلين لبض اللغوض ولا الدقوة يرغنق الشنات إلى الكعبين مع الكعبين مع الأنقوية للقبه. والترتيب ويرغن اللحات ترتيب وي على ما حال كوني أسو قدره حال كونه ترتيب كاس أهانتي سو على ما الذي كي دشي سو وهذا ذكرنا أن صور شيغني هماغا ترتيب سيدان أصور شيغني أبا اللغة جدا حال كونه على ما الذي ذكرناه سيدان صلقوا فصيره. ترتيب baa rabaa sidii loo soo sheegay loo tartiibiyo. wejiga laga bilaabo gacmaha lagu xijiyo, masaxa lagu xijiyo, lugaha lagu xijiyo. labada gacmood in laga kala hormariyo ayada waxa weeye midig la hormariyo waa sunno, laakiin wujuub ma aha. wejiga kor in laga bilaabo waa sunno, laakiin wujuub ma aha. sunnooyinkiina waa ka wa sunanuhu weesada sunnooyinkeedu 10 ashyaa 10 arrimood weeyaan. التسمية الله مقعابت قفكو مركو ويسدا باللابيو وينو إلهي مقعابه ويسدا مركو الله باللابيو إلهي بالله مقعابه مقع إلهي باللغب باللابها اللغة يداويان. التسمية والصنو سيدا النبي جن لقسو قاري عليه الصلاة والسلام إن مقع إلهي اللغب باللابه. وغسل الكفين لبدا قعمود أولا دغو فرحالكي وي لبدا كف أولا دغو قبل إدخالهما انتان لجلين كهر الإناء والك انتان جلين كهر وانا تقعمه ميرتو. هذا وال إلا جليم حكا لفيا وحنوغو إماد دونا يعني وحوي عمدة صالح كتاب كاللي يرادو وعدة الناسقة وحنوغو إماد دونا إن شاء الله اقتراف وحلي يرادو اقتراف
ikhtilaafku waa sacab darsi weeyaan qofka waxaa u bannaan gacmaha inuu biyaha ku qaadqaato oo ku weyse qadana weel bay ku jiraan ama barkad bay ku jiraan ama baaf bay ku jiraan gacmahaad ku qaadqaadan kartaa laakiin qofka loo ogol yahay gacmaha inuu wax ku qaato waa inuu la yimaado niyatul ikhtilaaf niyatul ikhtilaaf haddaadan niyadaas hadda la imaanin markaad biyihii soo qaadato eed wejiga mayrto gacantaada markaad waxaan rabaa wejigii markaad mayrto oo aad gacantaada waxa weeyaan ku celiso ood ka soo bixiso gacanta soo lama marayo booskeedii biyihii waxay noqonayaan mustacmal mar hadday mustacmal noqdeenna wax dambe kuma galaan mustacmal bay noqonayaan laakiin waxaad mustacmal uga badbaadi kartaa gacantan aad biyaha ku qaadanayso in wax lagu qaadqaadanayo inaad u niyeysato oo iyada aan wax kale aysan kuu qabanaynin marka intaadan weelka gelin biyaha faraxalkan hadda lays amrayo sunnada laga dhiga waxa weeye gacanta waxaa laga yaabaa intaad hurdayso kale inay wax najaasa iyo sida nabigu ka hadla ay taabatay calayhi salaatu wasalaam marka biyuhu hadday yihiin biyo qaliil ah waa inaad gacantaadii mayrto weeyaan haddii najaaso gacanta lagu hubana maba la ogolaba hadde markaas haddii dahaaro lagu hubana dhib ma lahaateen ee midii aan waxba lagu hubin biyihiin ay qaliil yihiin iyo kuwaas weeyaan walmadmadatu luqluq baa la sunneeyaa wal istinshaaqu sandaarsina waa la sunneeyaa luqluq iyo sandaarsi ay culamadu dhihi istinshaaqa waa qofku hal gacan dhowr kayfiyo u soo arooray laakiin sida uu ku fasiraya imaamu nawowi kayfiyaadka lagu wariyey kan ugu fiican waxa weeyaan waa inuu qofku sameeyo jamci oo macnaha waxa weeyaan inuu kulmiyo halkii gacanba inuu ku kulmiyo luqluqa iyo sandaarsiga hal gacan buu soo qaadanaya qayb buu ku luqluqanaa qayb soo marin biyihii sanku ku shubaya wuu tufayaa marka waa hal mar 3 mar sidaa inaad samaydo weeye midka ugu fiican kaas weeyaan waxa kaloo la sunneeyaa waa masxu jamiici ra'si madaxa kulligii in la masaxana waa sunno madax oo dhan aad masaxdo waa sunna weeyaan wa masax meel ka mid ah wujuubeeto soo mar arkaanta laakiin kulli inaad masaxdo kayfiyada ugu fiican waa qofku labadan suul inuu saaro sudqaynka labadaa faroodna meesha muqadamada la yidhaha madaxa gacmihiio faraha iskugu dhegan yihiin oo qoyan inaad saa madaxa u mariso ku soo celiso 3 mar sidaa ku sameey gacnahaagiyo qoyan waa kayfiyada ugu fiican weeyaan wataas wa masxul udunayni labada dhegood oo la masaxo waa sunno ee waajib ma aha daahirihimaa daahirkooda kore ee daahirkooda waa maxay waa dhegta meesheedaas madaxa xigta daahir la yidhaahdaa iyo wa baadinihimaa baadinkooda baadinka gudaha u qabin oo bannaankan weeyaan ee intaad baadinka gudaha u qabto biyaha isku shubin qatarna ha gelin weeyaan baadinku waa bannaankan baa looga jeedaa bimaa in biyo lagu masaxo biyahaasoo jadiidin cusub biyo cusub bay leeyihiin oo mar walbood masaxayso biyo cusub soo qaado gacmihii soo qoy masax kuwaan labadan suul sida u mari gacmaha meeshaan kuwaan farahan sabaabadana meeshaan kore mari ayagoo mabluula sida haddana u saaro weeyaan wata sida loo misaali jiray macnaha wa takhliilu lixyati garkii oo la gelgeliyo biyaha la sunneeyaa garkii alkathati badneed garka laga hadlayo waa garkee waxaa shardi horta nin inuu ku yaallo haddii nin inuu ku yaallo la yidhaahdo dumarka ma ka soo baxa gar naadir bay fuqaadu ku sheegaan naadir way jirtaa bay dheen gabar garle annagu kolley weli maana arkin laakiin waa suuragal weeyaan waa suuragal haddii gabadhu gar yeelato iyada waa qasab inay mayrto macnaha laakiin waxaa laga hadlaa waa ninkii weeyaan ninka garkiisu laba loo qaybiyaa in uu yahay katha iyo inuu yahay khafiif katha maxaa looga jeedaa qofka mukhaadabka oo aad la hadlayso kaa soo horjeeda basharka timaha jirka ka hooseeya hadduu u jeedo waa khafiif hadday timuhu badan yihiinoo jirka ou qarsoomana muxuu yahay waa katha weeyaan katha hadduu noqdo bato caaridaynka iyo garka basharkooda hoose in la mayro waajib ma aha laakiin maxaa sunnaa in biyaha la gelgeliyo weeyaan takhliilkan hadda uu noo sheegayo waa gacantaadiioo qoyan inaad hoos ka soo geliso waa sunno waa hadduu badan yahay hadduu yar yahay takhliilku sunno maahane waaba waajib markaas weeyaan saasaa loo qaybiyaa waxaa kaloo sunno ah wa takhliilu asaabici alyadayn labada lugood iyo warrij labada gacmood farahooda in laysdhex gelgeliyo marka macnaha la weyse qaadanayo weeyaan takhliil lagu sameeyo
iyo warrijlayn labada lugood taqliil in lagu sameeyo fartaan gacantan bidixdaha wax lagu mayro waa tii la dhihi jiray lugta midigta ah fariirteeda ka soo bilaaw saa taqliil lagu sameey midda kale bidixda lugtada bidixda ah suulkeeda ku dhamay faraha saa u gelgeli weeyaan dhexdooda macnaa markaad mayrayso waa sunno in si fiican biyuhu u gaaraan baa la rabaa xibin walba oo xibin ka mida biyuhu aysan ka soo laabanin wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyaa la sunneeyaa yaa laga hormarinayaa cala alyusra bidixda labadan gacmood tee la hormariyaa sunno ah midigta labada lugoodna midigta tayaamunka nabigeennu wuu jecla calayhi salaatu wasalaam wadahaaratu baa la sunneeyaa ثلاثا سدح loo dahaaro qaato macnaha xibin walba in la mayro 3 marka lagu oranayo xibin walba 3 in la mayraa sunno ah waxaa shardi ah inaan waqtigu ciriiri ahayn haddii waqtigu kaa tegayo waajibka lagu gaabsadaa waxaa kaloo shardi ah inaan biyuhu ciriiri kugu ahayn haddii biyuhu aysanba waajibkii ku gaarsiinaynin waajibaadka ku dhaqan weeyaan waajibaad ku koobo ku ekayso marka ثلاثا in laga yareeyo waa karaaho iyadoo macnaha wax ciladu jirin in laga badiyana waa karaaho in laga badiyo lama ogola markii karaaho noqonayso waa goorma waa haddii xibinkii tacmiim buuxa uu helay xibinkii haddaan biyuhu meel ka mida gaarin waajibkii weli ma kaamil noqon maxaa 3 lagu ekaysiistaa walmuwaalaatu baa la sunneeyaa sunnooyinka 10 midka ugu dambeeya waa maxay muwaalaad waa maxay waa markaad mayrto xibinka wejiga maalan gacmihii inta wejigu qoyan yahay waa inaad mayrto lugihii mayrto wahaakada waxaa la yidhi muwaalaadkan wuxuu sunno u yahay liqayri saaxibi daruurati waa inaad ku qaydaan meeshaas liqayri saaxibi daruurati qofka daruurada u saaxiibka ah in badan baad ku arki doontiin kutubta fiqiga ah saaxibu daruura maxaa looga jeedaa saaxibu daruura waxaa looga jeedaa waa ruuxa aan awood u lahayn inuu weysada ilaashado دائم الحدث وصفينا كما نارك جيرين كاسو وي صاحب الضروره اسكو ميد كا ويان روح صاحب الضروره اللي يراهدو او اما دائم الحدث كاللي يراهدو اسغا موالاتكم موصنا انو حريريو ما واجبكو يا ويان marka uu taxafud ka sameeyo inuu hore ka istinjoodo marka uu istinjoodo hore inuu ka weesa qaato weesada xibnaheeda inuu xiriiriyo weesada markuu taam yeelo hore inuu ka tukado intaas shardi baa asaga laga rabaa waa qofka daruurada u saaxiibka ah oo aan weesada dhowran karin oo riixdu iska soconayso ama kaayadu soconayso ama gabadha mustaxaadada ah ama salisul bawlka ama salisul maniga ku miisaaliyaan waxa soo dhan baa soo galay فصل والاستنجاء متن كتابك أم بان ودينا كبلنا متن سارينا فهم كيسنا وكهضلنا سقف والبا متن أبو شجاع وآخر كروي يعني إن شاء الله نوفو ذي فصل والاستنجاء استنجد واجب وهي استنجد من البول بول كحجيس أي واجب قطع والقائد السحرة يعني شيء النجاسة وقفك كصابحة إن لقى استنجد وامحي هذه الرب إن العباديسته وواجب كليه والأفضل سيدا وناق بدن أن يستنجي بالأحجار وإنه وقفك الرجحان كو استنجوده ثم يتبعها بالماء مركانا بيها أو راعي والله بإنه اسكت درسوما مركا الرجحان تكو السماي كبعدنا بيكو حج ويجوز وحا بنان أن يقتصر إنه كو قابصدو أما كو كافتومو على الماء بيها أو كليه أو على 3 أحجار أما 6 دغح إنه كو كافتوم كو غابسدا اسكا بنان او ادو بيه هلي كرا دغحان كلي كو استجوتو وا كو بنانت شرط ما ان بيه لوايا دغح marka lagu istijoonayo ادو هلي كرا بيو ayaa dagax bisku ku kaaftoomi kartaa waa istinje kaamil ah saddexdaas dagaxoos jumlada waa sifo yunqi oo ku dahirinayo mustanjigu yunqi faa'ilkeeduna muxuu yahay waa mustanjiga بهن 3 المحل بوسك او كدهرينيو وا 3 دغخ او بوسك او كدهرينيو كو نظيفينيا لوغا جدا ينقيدا 3 دان بوسك هداي نظيف كدغي ويدو maxaa la dhihi jiray waa in mid lagu ziyaadiyo haday shafci ku taam noqoto ku daahir noqoto maxaa la dhihi jiray wayusanalu itaaru soma watar ba marka la suneeyaa oo shan laga dhigo dhagxaanta sidaas weeyaan fayda araada haduu doono mustanjigu الاختصار كقابصشو على أحدهما دغحانتي يبيه مدكود لغو قابصدو
wuxuu rabaa inuusan labadaba isku darin ee hal mid uu iskaga istinjoodo yaa fiican markaas falmaa'u bihi ba afdalu biyaha fadli badan biyaha markaa fiican dahaaradu waxaa la yidhaha mar waxaa la yidhaahdaa dahaara muziilaha la yidhahdaa saddexa loo qaybiyaa dahaara muziila iyo dahaara mubiixa iyo dahaara mukhafifa loo qaybiyaa saddexda dahaaro haddaad maqal saddexaas u qaybsantaa dahaara muziilaha waxaa la yidhaahdaa wax suulisa waa marka biyo lagu dahaaro qaato biyuhu waxa dhan waa suulinayaan dahaara mubiixana waxaa la yidhaahdaa idaa tadaharta bituraabi ciid markaad ku dahaaro qaadato waa marka biyo la waayo maxaa lagu dahaaro qaataa fatayamamuu saciidan dayiban ciid baa lagu dahaaro qaataa soo ma aha ciiddu marka muziilo ma aha waa mubiixo maxay bannaysaa wixii biyo kuu bannaynayeen markaad ku dahaaro qaadato bay ciidda marka lagu dahaaro qaatana kuu bannaynaysaa weeyaan nawaytu istibaaxata asalaat waatan la yidhaahdo qofka ciidda ku dahaaro qaadana ma dhihi karaa nawaytu rafca alxadath ma dhihi karaa ma dhihi karo waa noo imaan doontaa nawaytu istibaaxata asalaat buu leeyihi dahaaro wax fududaydana waa maxay waa marka dhagaxa lagu istijo qaato qofku hadduu istijmaar baa la yidhaha midaan xadiista markaa waa ku arki doonteen istijmaar dhagaxa markuu qofku ku istinjoodo waa dahaara mukhafifa najaasta oon bay fududaysaa waa dahirinaya meesha laakiin aharta iyo raadka ma zuulin karto aharta iyo raadka ma ay suulin karto weeyaan marka dahaaradu dhowrkaabay u qaybsamaan wayajtanibu istiqbaala alqiblati wastidbaaraha fi saxraa'i wayajtanibu wuxuu ka dheeraadaa qofku markuu rabo inuu istinjoodo qiblada ma qaabilaya noo imaan doonta mana u dib jeedinayo mid baa inta maqla iyadoo meesha la akrinayuu yidhi culummadeeda waa nawaaleen buu yidhi maxaan samaynaa ma kor buu u jeestaa layidhi markuu macnaha inuu rabo inuu kaadiyo culummadii waxay dheheen buu yidhi xaggana ha u jeesan duburkana ha u jeedin xaggee annagu aadnaa buu yidhi yacni waxa laga hadlayaa waxa weeyaan masaladan soo socota qofka la odhanayo qiblada inuu qaabilo ama u dib jeediyo lama ogola waa horta qof aan musqul joogin baa laga hadlayaa waa fii kayri lmucaddi liqadaa'i alxaaja waa meelaan loo diyaarinba in lagu daharo qaato waa duurka cidlada ah duurka cidlada markaad joogto meesha aad joogtaa haddaysan wax laysku aadiyaba lahayn waa banaanka dhulka la yidhahdo wadamada banaanka ah banaanyada leh markaad joogto qiblada ha isku aadin xaajadaada ha ku aadin duburkaagana ha ku aadin weeyaan meelaha kale u jeeso istiqbaalka iyo istidbaarka iska ilaali haddii uu istiqbaal iyo istidbaar ku sameeyo qiblada waaba xaaraan buu ku dhacay weeyaan xaaraan buu ku dhacaya marka masaladaa shuruud bay leedahay dersigeenna soo socda insha allahu ayaan ku ogaa doonaa halkaa waxaa noogu dhammaaday casharkeennii afaraad ee kitaabkeenna abushujaac ilahi ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh